السلام عليكم صاحبada aanu jecelnahay kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijyadeena caafimaadka waan kaga soo gudbino bogeenan muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa qarowga iyo sababaha ama waxyaabaha sababa qarowga waa xaalad lagu magacaabo night terrorist waana xaalad ku soo noqnoqota qofka xilliga uu jiifo habeenkii marka uu qarowgu qofka ku bilaabanayo waxa uu u muuqdaa qof soo toosaya waa uu dhaqdhaqaaqa ooya ama waxyaabo kale oo la xiriira cabsi iyo xanaaq ayuu muujiyaa xaaladaas qofku waxa uu ku jiri karaa daqiiqado badan mana awoodo inuu soo baraarugo inta badan marka uu qofku dhameysto qarowga dhinaca midig ee dhabarka ayuu isu tuuraa ama isu rogaa qarowgu waxa uu ku badan yahay caruurta laakiin dadka waaweyn waa ay isku arki karaan qiyaastii 2% marka ay soo kacaan ma oga inay qarwayeen caawa oo idil ama waxa ay ku qarwayeen waxaa jira farqi u dhaxeeya qarowga oo ah night terrorist iyo riyada oo lagu magacaabo iyadana nightmares marka qofka riyoonaya uu soo baraarugo si dhab ah ayuu u cabiri karaa riyadii uu ku guda jiray halka qofka qarwaya uu ku sii jiro hurdadiisa marka uu soo baraarugana uusan xasuusan wixii uu ku qarwayay sababaha qarowgu waxa uu dhacaa marka qofku si fiican u hurdin si fiican u soo jeedin inkasta oo aan si sax ah loo ogeyn waxa dhabta ah ee keena haddana xeeladayaashu waxay cadeynayaan waxyaabo badan oo la xiriiriyo caafimaad darrada la xiriiriyo qarowga waxa kamid ah xanuunada maskaxda sida walwalka isku buuqa maskax faluuqa iyo jug qofka ku dhacday sida oo kale waxa keeni kara qarowga ciladaha la xiriira neef mareenka sida neefta qofka ku xiranta xilliga jiifka ee lagu magacaabo sleep apnea sidee lagu ogaadaa qarowga dadka waaweyn waa ay adag tahay in si fudud lagu ogaado sababtoo ah joogto ma ahan sida oo kalena ma xasuustaan inay qarwayeen waxa ugu sahlan ee lagu ogaan karo waa in qofku hurdada la wadaago qof kale kaas oo uu xaqiijiyo qofka waxa uu ku qarwayay iyo sida hurdadiisu isu bedeshay qarowgu inta badan dawo uma baahna laakiin waxa muhiim ah waxa sababay in la xaliyo mararka qaar qarowgu waxa uu waxyeelo u geysan karaa qofka jirkiisa taas oo ku timaada marka uu qofku jirkiisa dhaqdhaqaajiyo ee uu ku dhufto gidaarka iyo meelaha halis ah sida oo kale qofku waxa uu dhaawici karaa qofka la hurdaya